kulamadan oo ahaa kuwo isdaba jooga ayna si kala gooni u yeelanayeen wafdiga madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo oo ay ka mid yihiin qaar ka mid ah golaha wasiirada iyo mas'uuliyiin kale ayaa waxa ay la yeelanayeen madaxda qaar ka mid ah wadamada caalamka ee ka qaybgalaya kulanka 74aad ee qaramada midoobay. shirarkan iyo kuwo kale ee wafdiga madaxweyne farmaajo ay yeelan doonaan inta lagu guda jiro fadhiga 74aad ee wadamada ku boobay qaramada midoobay ayaa looga wada hadli doonaa xoojinta iyo ballaarinta xiriirada ka dhaxeeya Soomaaliya iyo madaxda wadamada ay la kulmayaan. wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya mudane Axmed Ciise Cawad oo ka qaybgalaya kulamadan ayaa sheegay in Soomaaliya ay muhiimad ballaaran u leeyihiin is-aragyada madaxda dalalka ay la kulmeen. maanta waxaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo iyo wafdiga la socdo waxa ay shirar horudhaca la yeesheen madax badan kana qayb galeen kulamo horudhac u ah shirweynaha kulanka qaramada midoobay ee bari bilaabmaya. maanta madaxweynuhu wuxuu ka qayb galay kulan looga hadlayo xorriyadda diinta iyo aaminaadda yani aaminaadda diinta oo gudoominayay madaxweynaha Mareykanka oo madaxweynayaal badan ay ka soo qayb galeen iyo marti kaleeto. madaxweynuhu sidoo kaleeto wuxuu tegay kulan looga hadlayay climate change ama isbedelka cimilada oo loo arko inay khatar weyn ay tahay mustaqbalka haddaan wax laga qaban. sidoo kale madaxweynuhu wuxuu la kulmay ra'iisul wasaaraha dalka Ireland iyo kulamo kaleeto oo gaargaar ah wafdigiisa maadaama kulamadu badnaayeen qaar ka mid ah iyaguna waxay lahaayeen kulamo gaar ah. مثلا anigu waxaan kulamo la yeeshay wasiirka horumarinta Sweden Peter Eriksson. waxaan kaloo la kulmay gabadha wasiirka arrimaha dibadda waa dalka Norway. waxaan sidoo kale ka qayb galay kulan weynaha looga hadlayay caafimaadka adduunka iyo kulamo kaleeto oo tiro badan oo ay ka mid yihiin kulan wasiirada dalalka carabtu ay lahaayeen. marka kulamadaas iyo kuwa kale oo badan oo wafdiga qaybihiisa kala duwan ay ka qayb galayeen maadaama kulamo badan oo isdhinac socda ay ahaayeen ayaa maanta dhacay. qaar madaxweynuhu ka qayb galayay, qaar wasiiradu ka qayb galayeen, qaarna safiirada ay ka qayb galayeen. mid ka mid ah hay'adaha ugu waaweyn adduunka ee dhinaca isdhexgalka iyo wada shaqaynta wadamada caalamka oo magaceeda loo soo gaabiyo Concordia ayaa madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo guddoonsiisay bila sharaf oo ku mutaysay sida ay sheegeen dadaaladii dheeraa ee u galay sidii qaaradda Afrika gaar ahaan geeska Afrika loogu soo dabaali lahaa xasillooni. waxaa sii socon doona kulamo duceedyada ay yeelanayaan madaxda Soomaaliya iyo qaar ka mid ah wufuudda ka qaybgalaysa shirka oo sanadkan diiradda lagu saarayo ciribtirka faqriga ama saboolnimada, taabagelinta waxbarasho tayo leh iyo isbedelka cimilada. ammaanka magaalada New York ayaa si aad loo adkeeyay iyadoo la xiray wadooyin halbowlo isku socodka dadka iyo gaadiidka. taasna waxa ay keentay in mararka qaar aad ku aragto wadooyinka madaxda wadamo waaweyn oo lugtooda maalaya si ay u gaaraan xarunta uu shirka ka socday qaramada midoobay. Bashiir Taajir, SNTV, New York.